wejigii labaad ee tababarkan ku saabsanaa ahmiyadda qoraalka iyo akhriska afka hooyo oo ay qaadanayeen qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa waxaa casharada bixinaya gudoomiyaha akademiyada goboleedka afka Soomaaliga AGA waxaana dhalinyarada lagu baraarujinayay taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Cabdinaasir Yuusuf Macalin gudoomiyaha naadiga qalinleyda iyo hal-abuurka oo loo yaqaano Somali Pen iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee naadiga Professor Mustafa Cabdullaahi Fayrus ayaa ka hadlay taariikhdii la aasaasay naadigan iyo doorka uu ku leeyahay ahmiyadda afka hooyo. waxaa sharaf weyn inoo ah marka dad badan oo halkan jooga oo aan anigu ka mid ahay inuu ii ahaa gardaadiyihii inaan u hiiliyo ama mar kastaba aan u helanaano sidii afkeenu u noqon lahaa kan ugu wanaagsan ee mujtamaca Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed ay mar walba hiil iyo hooba ay isgarab taagaan. dabcan naadigan markii la aasaasay dabcan cid oo qof Soomaali ah kumuusan fikirin waxaa dhici karta 96dii xitaa maysan jirin dawlad oo qof walba wuxuu maanka ku hayay sidii uga baxsan lahaa dalka oo kale laakiin isagoo halka joogay wadan kale ayuu wuxuu ku fikiray marka naadigan in la sameeyo loo sameeyo marka daayirta ama jiilalka soo socda inay u noqdaan marka bulshada Soomaaliyeed inay afkooda u heliyaan. marka tii Soomaaliga ayay ahayd markii la sameeyay 1996 abaabulkeedii si rasmi ah loogu dhawaaqay 1997 xubin buuxdana ka noqday naadiga caalamiga ah ee la yiraahdo Pen International sida loo tilmaamay gudoomiyaha aasaasiga ugu horeeyay wuxuu ahaa Dr. Maxamed Daahir Afrax gudoomiyaha ugu horeeyayna asagoo noqday wuxuu leeyahay naadigu shirweyne dhowrkii sanaba mar uu isugu yimaado lagu doorto dadka xilka haynaya ee mas'uuliyadda haynaya. Dr. Maxamed Daahir Afrax gudoomiyaha akademiyada goboleedka afka Soomaaliga AGA ayaa sharaxay sida looga baahan yahay in kor loo qaado afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyadoo sanadkan soo socday ku beegan tahay 100 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska naadiga caalamiga ee qalinleyda iyo hal-abuurka oo la aasaasay 1901 waxaa la qabtay 2 bilood ka hor ayaa waxaa lagu qabtay wadanka Philippines Manila waxaa ka qayb galay 146 santar يعني halkaas ay maraya hadda meesha hadda uu marayo iyo meesha maalinta joogay oo ah 100 sano ka hor sanadka soo socda ayaa waxa loo dabaaldegayaa 100 guuradii asaaska International Pen oo 100 jirsanaya maartay hal qarni oo jiraya marka yani halka qarni oo dhan ayaa waxa ay u yeesheen adkaysi iyo dulqaad iyo muxuu ahaa mintig qorayaashaas adduunka inuu marna hakan oo sanad walba shirweyne la isugu yimaado marka waxaan sheegay inaan kaga dayano haddii aanu nahay Soomaali. Cabduqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho.